wasiirka wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee dhawaan xukuumadda Soomaaliland bilowday. wasiirka warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisu waxa uu sheegay in mashruuca diiwaangelinta hantida maguurtada aanu ahayn mid cid gaar ah looga dan leeyahay, balse ujeedadiisu tahay in qaran ahaan la diiwaangeliyo hantida maguurtada ah ee Soomaaliland leedahay. wasiirka wasaaradda hawlaha guud waxa uu cid kasta oo mashruucan si qaldan u fasiratay uu soo jeediyay in aanay majar habaabin ujeedada qaran ahaan laga leeyahay fulinta mashruucan. arrinka oo maanta ku shan socday waxa ka soo yeedhay dadka warar badan oo kala jaada marka ugu horeysa wasaaradda hawlaha guud hadalkii aanu sheegnay iyo barnaamijkii aanu sameynay ee ahaa diiwaangelinta hantida maguurtada ee dalka wax noo dheeri ma jiro. cid gaar ah oo aan yoolno oo aan ku taargid garaynayna ma jirto. dad kale haddii beedkeeda soo yeedhiyay wariyaan cid gaar ah la taargid garaynin oo gudoomiyaha xisbiga wadani uu sheegay uu yiri cid gaar ah la taargid garaynin cid gaar ah oo aan taargid garaynina ma jirto. hanti dawladda leedahay oo ummadda Soomaaliland leedahay oo aanu ka tagaynaana ma jirto. wixii madaxweyne bixiyay waa meesheeda mana diiwaangelinayno doonana mayno. wixiise hanti dawladda ah haddii beedka leeyahay ka sokeeya waraaq madaxweyne waxa haysta waa diiwaangelinaya waa hanti dawladeed. geesta kale wasiirku waxa uu sheegay in dhaqaalaha ku baxaya mashruuca diiwaangelinta hantida maguurtada ay wasaaraddu ka bixinayso miisaaniyad sanadeedkeeda u gaarka ah, balse aanay jirin cid kale oo ka taageertay. mashruucan aan wadnay wuxuu iska ahaa mashruuc kooban oo budgetka wasaaradda ee sanadkan ku jira. waxa wasaaraddeeda ku jiray mashruuc inaanu hantida dawladda diiwaan gelino oo hanti kooban aad iyo aad u kooban oo baahida in wax lagu diiwaan geliyo aan boqolkiiba 50 ka gaarin. hadda waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kadib markuu uu daafuray mashruucan ballan qaaday fuliyayna in baahida wasaaradda ee diiwaangelinta hantida maguurtada ah inuu kab ku sameeyo kaas oo uu dhameeyay kabkiisi. darbaaba waxa lahaa waa mashruuc weyn oo lacag malaayiin ah dad gaar ah la siiyay. aadmu hadduu kala xishoon waayo ilaahay baa laga xishoodaa. waxaan jirinna lama sameeyo lama abuuro. wasaaradda hawlaha guud si volunteernimo ah oo bay u fulinayaan. aniga idinla hadlayaa xitaa waa u soconaynaa waa u dhaxaynaa waa u wareegaynaa. diiwaangelinta hantida maguurtada ee wasaaradda hawlaha guud bilowda ayaa ka socda dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalka, iyadoo la filayo in mashruucan diiwaangelinta hantida maguurtada uu qaato muddo 20 cisho sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta ee Soomaaliland. Cabdiqaadir Xuseen Nurdacar iyo Maxamed Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka, magaalada Hargeysa.